السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسروا الغليظ لساني سامر والبكلا صوتان علمي كمبيوتر كي برامج الملتميديا عشر كم حكو سبسيان سيد الله سمي اللوغو حرف والب حرف الشيبس أنا وكسمين إن شاء الله أيام كل وداقي دونا هدو الادمو كسروا الغليظ لساني سمركلا مركو ورئيس وحسمين فايل مينيو فوتوشوب كنا سوق عيس فايل مينيو نيو إنا كدبنا وحان دورنا عبر aan inta badan isticmaalno loogooyinka markaan sameynayno cabirkan ayaan doornayna 720 pixel pixel inay ku ahaato joog isku mid ka dhig 720 resolution-kana waa 300 RGB kaliya wide ha ku ahaado markaan save gareeyna meeshan transparent ayaan ka dhigaynaa kadibna okay ayaa leedahay. hadda waxaan sameynaynaa in cabiro inaan qaadano markuu horeyso view tag shows tag haddii calaamadan ka aqrisan yahay xariijimi hadda aan qarnay sida loo soo bandhigaa view shows leedahay kadibna grid ayaad leedahay. sida markaa usoo bandhigtid waxaa awood u yeelan doontaa cabir inaad ku socotid kadibna u ayaad door kartaa ama shape-ka ayaad dooranaysaa kadibna cabirka ku cabir maxaa la shape-iska leemanka ku cabir kadibna sidaas u day color-ka sidaan u bedel meeshaas kadibna control T de kadibna gees u qalooci loogadaada xarafka ugu horeeyo ama shape-ka ugu horeeyo shape-ka ayaa koobi ka sameynayna control J de control J ayaa la dhihi kartaa ama right click duplicate ayaa leedahay control T de right click de flip horizontal dooro kadibna soo drag kari hoos u geey. hadda waxaa u malaynaysaa inay geeska loo saaraa kadibna color-ka ka bedel kartaa direct adeeg ugu taalaa color-ka geeskan double click ku meesha thumbnail-ka sida soo muuqato. hadda waxaa u dareemaysaa in loogada is saaran tahay laakiin waxaan rabnaa hoos inaan geeno right hoos down kadibna dhaxda inaan gelino dhaxda maxaa la xaraf A aan qorayna shape-kan dooro kadibna new composition ama new layer abuur kadibna sidaan u drag gareey kadibna cabirka rabtid qoro ama waxaad dhihi kartaa gradient color isku dhex jira u baahan tahay double click ayaa leedahay meeshan oo layerka aad hadda abuuratay gradient ayaa dooranaysaa dhowr color isku dhex jiraan ayaa dooran kartaa sida markaa u dooratid ama kugu soo bandhigo meeshan fur okay color-ka u baahan tahay kan ka dhigo ama kan ka dhigo adeeg ku taalaa kadibna isku soo dhaweynaysaa cabirkan hoos ayaan geynaa xarafka eeda sumadiisa halahan waa isku xiraa control ayaad qabanaysaa click ku si kadibna move tool isticmaal. hadda waxaan u malaynaysaa hal xaraf inay hoos soo jirto maaho cabirka keen waxaa sameynaa shape-kan waaye kan waaye sidaan rajeynay right click ayaa leedahay resize ku sameey sidoo asig kan u sameysan yahay rabaa inaan ka dhiga kadibna calaamadan panel toolka isticmaal sida u sameysan yahay ayaan dooranaa click mention kasi sida hadda dhahdid xaraf siman oo qara xarafka siman u baahanahay kadibna delete kana sidaas oo sameyn kartaa ama calaamada mastarada inaad qaadatid sidaas oo sameyn kartaa weli ku sameey kadibna calaamadan kaliya ku si meeshaas la raac kadibna delete kan kale tag haddana xarafka kaas way right click resize de haddana sidaas sameey control X ama delete wuxuu noqonaa xaraf isla fadhiya. hadda waxa color-ka rabtaa ka bedel kartaa mid walba gooni u sameysan kartaa okay xarafta qoraalkii loogada magaceeda inaad ku qoratid type text tool dooro waa kana kadibna click ku meeshan kadib waxaad ku qoraysaa loogada magacaadiga ugu talagashay assemble
way kaasi kadibna waa select control A ayaad dhehaysaa farta si selecting ay kugu sameyso cabir isku mid ah inay kugu qaadato kadibna size intaad ka bedeli kartaa size-ka cabirka ku soo baxay is leedahay ayaa dooranaysaa ama waxaad dhihi kartaa geeskan tiida isaas u qabatid kadibna yareyn kartaa kadibna xarafka la sim ama wax yariska weynay 3 dooro xiriis xarbna loogadan inta color ay ka kooban tahay inaan ka dhigo eedaas alaamasaas markaa u select gareysid dooro meeshan kadibna saas u dooro qaybta kale ee media waxaa ka door kartaa color kale hadaa rabtid shape-ka colorka oo kan uu qaatay waad ka dhigi kartaa hadda waxaan jeedaa colorkaas kaas way kanaan bedeleynaa double click dheh color overlay dooro kadibna colorkan door meeshan kadibna okay dheh kadibna okay intaas sidaas marka u sameysid meeshan qofulka check qad background-iga waxaan rabnaa transparent ka dhigaysaa waa save gareynayna hadda waxaan jeedaa loogadiina waxaa meeshii way ku siman tahay cabir crop aan ku sameynaa cabir crop waxa loo isticmaalaa inta badan markii adiga qaybta aad dhameystay ina qayb yar aad ka qaadatid saas marka u sameysid background iyo guduudkaaga dhigo kugu soo qaadatay laakiin marka loogada aan save gareyno is not background ma yeelan doono kadibna sax saar okay file menu ayaan leenahay transparent u save gareynayna formatka photoshop uu leeyahay mar walba okay file menu save as ayaan leenahay marka horeysa photoshop ahaan u save gareyso tusaale ahaan customer ayaa u sameyn kartaa mar walba wuxuu ku dhihi karaa iga bedel logo photoshop ahaan u save gareyso kadibna save dheh hadda waxaan rabnaa in u save gareyno qaab png ah qofku portable inuu ku noqdo meel walba markii la dhigo aan jarjarid mar labaad aan loo naqanaynin kadibna png saas ku dooro magaciiba uu ku sameysan yahay save dheh wuxuu ku weydiinaa png options comparison oo isku sameynaa loo dhan non option smart list slow show dooro kadibna okay dheh taas in ku soo gabagabeynayna hadii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyada aan soo gudbino